kitaabkan waxa uu ka kooban yahay ilaa AINS ilaa CS5 marka waad garan kartaan inta ay isu jiraan si qofkuna hadduu CNS sameeyo jaamacaddu ba sameyn karaa. bismillaah waxaan ku soo dhaweynayaa Abubakar Gurey Warsame oo isaguna ragga kulley la socday Axmed Maxamed oo qoraaga Abubakar baa isna kelmadiisa aan siinaya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين aad iyo aad baan idin salaameynaa sida wanaagsan sharafta leh karaamada leh aad uga soo qayb gasheen xafladda intaas haddaan ka gudbo anigu waxaan ka yimi magaalada Mooshin Axmed baan wada soconay Axmedna Ustari uu ka yimi waana mufakkarka kitaabkan qoray inta markaa ka gudbo buugu wuxuu ka kooban yahay 90,000 oo eray 90,000 oo eray sida loo sheegay waa wax aad u badan 90,000 oo eray waxa sii dheer jumlado xarafka markii dabcan qofku uu xarafka arko oo xarafka Soomaali ku turjuman yahay waxa ka dambaysa iyadoo jumlad ah marka buuga Axmed waa qoray laakiin inaga maxaa faa'iido inoo ku yahay sida alla socotaan waxaanu joognaa dal aynu u soo haajirnay waxa aynu doonaynaa mustaqbal dalka wax u horeeya oo qofka uu dabcan furahana waa luqadda ma jirto ama way yar yihiin Soomaali dhameystiran 10% waa la dhici karaa dabcan qof perfectia laakiin haddii aynu dadaalno oo dabcan juhdi aynu sameeyno oo luqadda aynu baranno waa aynu gaari karnaa saa la socotaan qoom kasta ama cid kasta ama dad kasta waxay leeyihiin dictionary oo dabcan ay luqadooda ku egtaan inaga dictionary-geenu xaqiiqdii sax ma aha buuga kuna dictionary waa ka balaaran yahay xaqiiqdii waayo dictionary waxa la oran karaa markii dabcan kelmad soo saarto iyo macnaheeda laakiin jumlado badan oo dhameystiran saa la socotaan luqadda Dutch-ka saddex dal baa laga hadlaa intaynu ogsoonahay Austria iyo Switzerland qayb ka mid ah iyo Germany dadka Soomaalida ah oo dabcan saddexda dal ku nool faa'iido weyn ayuu u leeyahay buugan ama kitaabkan haddii dabcan aynu akhrisano waan dareemi karaa Soomaali baynu nahay xagga akhriska waa layna kaga fiican yahay laakiin waxaynu haddaynu dadaalno waynu yeeli karnaa matalan waxaad eegtaa tusaale ahaan marka qofku soo raaco baska ama tareenka inagu telefoon baan ku hadalnaa qofku hadduu shaqada ku sii socdo telefoon buu qabsanayaa iyo wuxuu isleeyahay intaas aad shaqada gelayso waxaa laga qofku inuu yiraahdo waa mahadsantahay shaqadii waa soo gaaray oo ku salaamaya laakiin ummadda kale waxbay akhristaa waayo qofku markii waxa la war la heliyaa tale la hel qofku markuu akhriyo ayaad garan kartaa faa'iidada akhrisku leeyahay iyo qorida oo qofkii wax soo qorayna uu dabcan han iyo hididilo aynu samayn karnaa inta marka aan ka gudbo annagu waxaanu ka nimi anigu Mooshin baan ka yimi laakiin Axmed walaalkeen waa soo safray buugan daafurkiisii koowaad waxa lagu furay Vienna 3 asbuuc kahor caasimadda Austria ما شاء الله سوى نكسب هرفينا أي مقارنة وسميين إن شاء الله ما قلت حد أنا وحن رجينا إن أنا كنت هفرنا ماينس بنكوس عن هذا وماينس بنوس يقول بينا بريت ولا عاو وجوجينا وحن رجينا إن سيدا ونكسنا نوصل وسين إن كتاب كان أدوجا فايدة سندونتان أنت مركا عن كجودبو وحن تلاقي يدردان إذا كسر جديد لها ما دام دلك والجوس كله رأي annagu dadka cusub baan ku jirnaa haddana wax weeya waana la ka dameeyay waana la ka soo horeeyay dadkana dhibaatada ugu badan oo haysata al-awwal wal aakhir wal luqada haddii dabcan aan luqada meel la saarin waxa tahay qof kala dhantaalan oo aanan dhameystirnayn ama dhigoola oo dabcan dalkii aan fahmin matalan luqada markaa garanayso xitaa waxaad garan kartaa marka dabcan dalka aad joogto ama dalkeenu joogno dhibaatooyin badan ba iska jirta oo dabcan haday midabka tahay ama magaca ama diinta dabcan haddii luqadii garanay qofka ku ag fadhiyo waxa uu ku leeyahay ma garan kartid laakiin sir ma laha qofkii dabcan markasta waa qof loo turjumaya ayaa tahay arintaasna waa laga bixi karaa qofku wax adag ma jiraan laakiin wax kasta waa niyadda haday maanta niyaddeena ka soo go'do in aynu luqadaas xooga saarno waa aynu samayn karnaa kitaabkan waxa uu ka kooban yahay ilaa AINS
ilaa CS5 marka waad garan kartaan inta ay isu jiraan si qofkuna hadduu CN sameeyo jaamacad buuba samayn karaa dabcan marka insha allahu hadalka waxaan u banaynayaa walaalkay axmed maxamuud cabdikariin axmed baashe waana mahadsantihiin sida wanaagsan oo sharafta leh oo karaamada leh aad noo soo dhaweyseen insha allahu waxaan rajaynayaa sida aad noo soo dhaweyseen buugga ama kitaabka uga faa'iidaysan doontaan aad iyo aad baan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu